اللهم صل على محمد وعلى أهله محمد. dhammaan bulshada Soomaaliyeed meel kasta joogan gaar ahaan dawladda Jubbaland iyo bulshada Jubbaland ku nool waxa caawa sharaf weyn oo ah guddiga xuduudaha iyo doorashooyinka Jubbaland inay idin soo bandhigaan qabanqaabada doorashada Jubbaland iyo qaabka ay noqonayso taasoo ku timid qodobada dastuuriga ah ee Jubbaland qodobka 25aad 28aad 29aad iyo 8aad iyo qodobada dastuurka dawladda federaalka u yaala ee kala 120 121 iyo 142 madaxweynuhu wuxuu cusboonaysiiyay hawlgelinta iyo shaqo fulinta guddiga xuduudaha iyo doorashooyinka Jubbaland 9kii bisha 11aad 2024 guddigu magacaabidiisa kadib wuxuu ka hawlgalay hawlihii dastuuriga ahaa ee u yaalay kadib markuu baarlamaanka Jubbaland ansixiyay 10kii bisha 11aad 2024 asagoo ka bilaabay wacyigelinta bulshada wixii kale faahfaahinaya hawl fudinta ah bulshada Soomaaliyeed iyo reer Jubbaland waxay ka heli doonaan habraaca midda labaad guddigu wuxuu diyaariyay jadwalka ay ku socon doonaan hawlaha doorashada 2024 hawlahaas oo ah doorashooyinka xulidda shakhsiyaadka ka mid noqon doona baarlamaanka cusub ee Jubbaland dhisidda baarlamaanka Jubbaland iyo doorashada madaxweynaha Jubbaland haddii aan la idmo sida ku cad jadwalka wixii kale faahfaahinaya insha Allah waxaad kala xiriiri doontaan guddiga cidii u baahato sidaasaan rajeynaa Ilaahay idankiis inaan wada xiriirno Allah nagu guuleeyo dhamaanteen wanaaga iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed aad baad u mahadsantiin salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh